الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalayaal waxaan soo gaarnay xilligii aan qaadan jirnay programka inay qiimaha badnaa aan kula taliyay talama qaadanaysa iyo sheekheena Sheekh Maxamuud Xasan Abu Talha aad uga barateen kelimadihii qiimaha badnaa oo inagu hormarin jiray programka. haddana waxaan ku soo dhaweynayaa goobta sheekheena. ilaahay ku barakeeyo sheekh, fale tafadal mashkuuran maajuur. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، أحبائي في الله، ولا لها أن إلهي درادي أجعلهاي ميل والبعض الدنيا كتشوكتان با، وحال نكو السلام يا تحية السلام، تحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلامة إسلام ككذب برنامج كني وبرنامج كي تضبط لها أها لما قعد حي أن كلت لي تلما قاضا عاوى بإذن الله تبارك وتعالى كلمة أنش على يستي إن أنكهر مريو، وكلمة لما قعد حضي رال لما كنت هاي وحو الله كو قري، رال لما كنت هاي وحو الله كو قدري، رال لما كنت هاي وحو الله كو حكمي سبحانه وتعالى. رال لما كنت هاي نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث بدن أياك سجناتي سيدا أوكلا. طبعا آياتها القرآن كأنا أياك أيابا قاعدو هي أصلوا ujeedada aan kelimadan u doortayna waxay tahay arrimahan ku cusub Awroba iyo Ameerika ee siyaasadda isbedeshay ee ku wajahan khaasatan ummadda Soomaaliyeed ayay kelimadu ku saabsan tahay biidhnillaahi tabaaraka wa tacaala. halku dhageedana sida aanu sheegnay raalli ma ku tahay wuxuu alla kuu qoray oo uu kuu qadaray. waxaa kelimadan igu kallifay maanta anigoo caasimadda labaad ee dalka Denmark aniga oo safar u sii ah masjid aad iyo aad u qiimo badan furitaankiisana inaan ka qayb galo aan ugu talagalay, ayaa intaan baabuurka sii saarayn ayaa waxaa nala socday nin dhalinyaro ah oo la yidhi waa lagu celin doonaa. interviewgii baa laga qaaday. markaasaa erey uu yidhi ama hadal uu yidhi ayaan aad iyo aad qalbigayga ugu degay, qalbigayguna ugu raaxaystay, isla markaana aan go'aansaday inaan caawa kelimadayda aan ka dhigo raalli ma ku tahay wuxuu alla ii qadaray. qisaduna waxay ahayd markuu walaalku nooga sheekeeyey interviewgii iyo mas'alada celitaanka ayaa wuxuu yidhi waxaa igu soo dhacday buu yidhi qalbigayga oon aad oola cajabay buu yidhi markaan interviewga aan ka soo noqday anigoo la ileeyahay ka warran waddankaagii haddii laguu celiyo, ka warran waddankaagii hooyo haddii laguu celiyo. markaasaan qalbigayga waxaan ku sheekaystay buu yidhi subxaana allah, ka warran maanta waddankaagii ha laguu celiyana waa lagu leeyahay, adiguna qalbigaagii raalli kuma aha. waxaan dareemay buu yidhi xaraj, waxaan dareemay buu yidhi qalbigayga culays, waddankaygii ma rabo ayaa macnaheedu kelime ah ayaa maxaa la yidhahdaa aan dareemayaa. nabigeenna calayhi assalaatu wassalaam intuu maalintii maka laga saaray intuu gadaal u soo fiiriyey ayuu yidhi maa atyabaki min beledin, alla maxaa kaa wanaagsan. talow haddee beled ka wanaagsan miyaa jira? beled kaa wanaagsan ma jiro weeyaan. waxaa tahay
إلهي مقالوينكو أبوري مقالة أكتئذة لو كالقعي لبنيهي آياتهي أيو يلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك هدي أنيقا قلابيدة أو قريش هدينا إغسارين أو إنا مكحوق إغسارين ميلا مكأه المدقين والحديث رواه الترمذي وصححه الترمذي والألباني في صحيح الجامع ولذلك ذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إنك لخير وحاتهي أرض الله تبارك وتعالى ما كيدلك إلهي ما شاء خير كبدن آياتهي محنوسو قادنا يا أحاديثه وحنوسو قادنا يا وإن كان مكأيتهي ما لها أبو خير كبدن الله سبحانه وتعالى ما شاء خير بدن إله دلكو أبوري هذا وحاود لي شريعه warqofka la yiri dhulkaagi baa lagu celinaya waa wax lagu farxa ayay ahay laakiin waxaan leeyahay qaacidadani wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa'asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun waxa laga yaabaa inaad shay naftaadu nacayso laakiin wallahi uu khayrku yahay waxa laga yaabaa inaad shay jeceshahay oo wallahi uu sharku yahay waxaan marka kelimada u jeedinayaa qofka muslimka ah wuxuu alle u qadaray inuu ku sabro qofka muslimka ah wuxuu alle u qoray inuu raali ku noqdo haddii la yidhi maanta dhulkaadii baa lagu celinayaa wa in kaana dhulkeennu qaabku yahay aan wada garanayno haddanana fa in karihtumuuhunna ayuu alle wuxuu leeyahay war dumarkii raggii baa lala hadlayaaye haddaad haweenkiinnii aad wuxuu ku nacdaan maalan ood wuxuu ku dhibsataan facasaa an takrahuu shay-an wayajcal allahu fiihi khayran kasiira waxaa laga yaabaa inuu alla subxaanahu wa tacaala khayr aad u badan oo idinka siiyo ayuu rabbi ilaahi subxaanahu wa tacaala qaacide ahaanna waxaad u qaadataan ina alinsaana qad yaqacu lahu shayun min alaqdaari almu'lima qofaa laga yaabaa inuu qadar xanuujiyo ku dhaco iyo musiibo asaga aad u xanuujisa oo uu naftiisu ay nacayso oo marka uu ka argagaxo oo uu dareemo xusni iyo murugo uu dareemo wadanna ana dalika almaqduur huwa darbatu alqaasiya uu marka u maleeyo waxa loo qadaray inay tahay tii lafdhabarta jabin lahayd walfaajica almuhlika iyo miduu ku baabi'i lahaa oo xayaatadiisa iyo mustaqbalkiisa uu markaa ka arki waayo wax wanaagsan fa idaa bidalika almaqduur minxa se wixii loo qadaray waaba cataaya waaba siismo ilaahay waa min thawbi mixna waa catiyatin waaba ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr uu la doonay aad iyo aad bay u fara badan tahay cagsigeedana waa saxiix fakam min insaanin sacaa fii shayin daahiruhu khayr meeqaanu aragnay qof ku dadaalaya shay daahirkiisa iyo muuqaalkiisa khayr baa ku jira laakiin natiijada iyo baatinku waa wax aad iyo aad u shar badan weeye arrinkaa maanta hadduu noo caddaaday haddii aanu nahay dadka kitaabka ilaahay rumaysano haddii aanu qaacidadani qur'aaniga ah wacasaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum wacasaa an tuxibbuu shay-an wa huwa sharun lakum wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun arrintaa qofka caqiideeya wuxuu ka mid noqonayaa dadka quluubtoodu ay degto qofka uu qalbigiisu xasilo qofka qalbigiisa raaxo ayuu ka dareemayaa wuxuuna meesha ka saarayaa qalaq wuxuu meesha ka saarayaa qalaq iyo walwalka iyo walbahaarka ayaa marka meesha ka baxay dhowr qisaan kusoo khatimaya marka dhowr qiso ayaan kusoo khatimaya kadibna waxaan iska weydiin doonaa arrimahan maanta Oroba iyo Amerika ka dhacaya ee celinta ummadda Soomaaliyeed dib loo celinayaay talow maslaxada ku jirtay maxay noqonaysaa wixii aniga ii muuqda biidnillah ayaan ku darayaa laakiin aan dhowr qiso aan idinka hormariyo xiriirna la leh qadarka ilaahay
oo lagu qanco xiriirna la leh waxaa laga yaabaa waxaa shar u malaynayso inuu khayrku noqdo bal waxaad ila fiirisaan nebiyullaahi muuse hooyadii markii ay muuse u dhashay ilaahay wuxuu amray inay badda ku tuurto waxaad ila suuraysataan hooyo ilmaheedii la yidhi badda ku tuur waxaad ila suuraysataan ilmo yar oo xalay ama habeen hore dhashay oo sanduuq lagu riday kadibna badda lagu tuuray falaa ilaaha ila allah wa awxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciih faidaa khifti calayh faalqiihi fi lyam walaa takhaafii walaa taxzanii shaki waxaan ku jirin in nabi muuse hooyadii la amray arrinay aad oga xanuunsanayso waa sida muuqato wey waa sida daahirka ah weye limaada lianna arrinta ku soo socota ee fircoon inuu wiilkan dilo ah iyo in badda lagu duuro iyo xikmadda ka dambaysa iyo inuu fircoonkii dilayey gurigiisa ku soo koro kadibna markuu fircoon uu muuse koriyana fircoon gacanta nabi muuse uu ku bixi doono arrintaa weeye arrinta qaybka ah arrintaa weeye arrinta qarsoon arrintaa weeye arrinta xikmadda ah arrintaa weeye arrinta iimaanka booska ku leh arrintaa weeye arrinta cawaaqib alxamiida yacni ciribta dambe iyo aahaarta wanaagsan iyo mustaqbalka wanaagsan iyo rumaynta kalaamullah wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun idinku wallahu yaclamu alle waa og yahay umuuraha xaqiiqadooda alle waa og yahay maslaxadda kugu jirta iyo middaan kugu jirin wa antum laa taclamuun idinkuse ma ogidiina horta qisadaa qabsada waa qiso cajiib badan waa dersi aad u yaab badan waa dersi qur'aani ah waa dersi iimaani ah waa dersi waaqici ah in ilmo yar badda lagu tuuray natiijadii ka dhalatayna waanu aragnay midhihii ka dhashayna waanu aragnay xaqaa'iqii ka dhashayna waanu aragnay daahirka arrin adag bay ahayd muuqaalku arrin adag buu ahaa laakiin natiijadu waxay noqotay arrinta aan wada ognahay wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun